بسم الله الرحمن الرحيم. مدن يلي مرويين waxaan halkan maanta isugu kan yeernay in aynu u sheegno bulshada reer Soomaaliland dabad iyo gudaba sidii caadadeyno ahayd in aynu bilaabayno dabaaldegii aynu ugu talagalay 18 May oo runtii ah maalin aad iyo aad ugu qiimo badan halku dhiga sanadkana uu yahay اعتراف كل سنة نبض يهرمر وحين بهنا هاي هدينا هاي بالشدة غير سوماليلاند عالم كوحين مرتئونا هاي اعتراف إلهي باعتراف كهية لكن سهاي حيبة نكدوننا يجنا وحمركها مهمة قفكم مركو وحدونا يو وحلي ما دافع كده يموقال كده الدين ما يوحي كم تهاي waxyaabaha aynu caalamka ku tusayno inaynu nahay dad u qalma inay noqdaan dawlad kamid ah duwalka caalamka ama UN waxay ka turjumaysaa sida aynu wax u qabsanay horumarkaynu gaadhnay nabadgelyada aynu adkaynay institutionska iyo qaranka aynu dhisanay ciidamada iyo nabadgelyada aynu dhisnay sida dadkeenu ugu riyaaqsan yahay inuu caalamka tuso inay doonayaan waxay u dagaalameen ee ay u dhinteen oo ah gobonnimo taam ah sidii ay 60kii uga qaateen dawladda boqortooyada Ingiriiska inay mar labaad la soo noqdeen caalamka tusaan diyaarna u yihiin wax alla wixii dawladdu u baahan tahay sida awgeed waxaan jecelahay aniga iyo guddida halkan fadhida oo ah guddida qabanqaabada ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyi uu magacaabay inaan bulshada u soo jeedino in looga baahan yahay sidii loo muujin lahaa ee horeba ugu muujiseen in maantana loo muujiyo qiimaha ay nala leedahay iyo quwadeena sida awgeed yar iyo weyn in farxadda laga wada qayb galo oo aynu inana muxuu ahaayay istusno aynu ku baraarugno waxa laynaga baahan yahay caalamkana tusno sida awgeed waxa kale oo jeclahay inaan idin sheego in loo baahan yahay sidaan walba u feejignayn inaynu nabadeena iyo xasiloonideena iyo midnimadeena aynu meel uga soo wada jeedno qof walibana halkiisa uu booliis ka yahay uu ilaaliye ka yahay oo danka leeyahay dalkiisa iyo nabadiisa inuu muxuu ahaayay u feejignaado baynu u baahanahay si wanaagsan oo qurux badan ay noogu dhacdo aad iyo aadna waa u mahadsantihiin halkana waxaan jeclaan ka salaano dadweynaha reer Soomaaliland ee dibad iyo gudaba u diyaar garoobay weynaynta iyo muuqaalka quruxda badan ee maalinta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin sida arkaysaan waxa halkan fadhiya guddidii qabanqaabada oo wasiirku idin jeer garaynayo guddidaasi qabanqaabada xuska 18 May ee qaranka Soomaaliland oo dhan weey guddidu waxa la shaqeynaya oo qof wal oo kasta oo Soomaaliland ah oo dunida dacaladeeda jooga iyo dalka gudihiisaba waxa kale oo guddida wakiilka oo la shaqeynaya barasaabada iyo meerada iyo guddiyada nabadgelyada ee gobolada iyo degmooyinka iyo guddiyada horumarinta ee tuulooyinka iyo gobolada iyo degmooyinka dalku leeyahay dhamaantood oo wakiilka ah guddidan oo goobta ay joogaan ay tahay inay xuskan oo kala ka qabtaan ka laga diyaarinayo dalka gudihiisa iyo dibadiisa dalalkeena dunida caalamka jaaliyadaheena dibaddu way qabtaan xuska 18 May waanay ku kala horumarsan yihiin waanay ku kala firfircoon yihiin sanadkanna waxaan u malaynayaa sida aanu warka ku hayno deegaamo fara badan ama dalal fara badan oo dunida ka mid ah ayaa jaaliyadahoodu waxay u abaabulan yihiin inay sanadkanna muujiyaan xus weyn oo u qalma maalintani qiimaha ay noogu fadhido cariga Ingiriiska oo hore looga sameyn jiray sidaas oo kale Sheffield iyo arrimii cusbaaye soo kordhay iyagana waxa ay keenayaan inay arrintaasi aqoonsiga darteed
dadaal fiican oo fara badan sameeyaan wadamada carabta oo iyagana markii hore ay ka fiicnaan jireen kuwa Yurub sanadkan waxaan u maleynayaa inay dadaal fara badan sameynayaan dalkana dunida dabadeeda iyo dalka gudihiisaba waxaan ku celinayaa mar kale qof kasta oo Somaliland ahi ka qaybgalka xuska 18 May waa kaga wakiil gudida qabanqaabada 18 May waa hawl aad nala qabatay waa hawl aad naftaada la qabatay waa hawl aynu wada qabanay in xuska 18 May uu dhaco sida ugu wanaagsan sanadkan waxaan ugu bishaareynayaa inay dhalinyarada ka yar sodon jirku si fiican u ciidi doonaan si aanay hore ugu ciidi jirin oo habeen iyo maalinba waynu ciyaari doonaa waxaynu xusi doonaa maalinta 18 May oo aynu ku faraxsanahay oo haddaynu daadaanahay innaga iska leh waxay noqonaysaa inay dhalinyaradu noqoto kuwa muujiya 18 May qiimaha ay ku fadhido waxaan kaloo ku darayaa oo aan si adag u sheegayaa wasiirkeenu arrimaha amniga iyo uu ka soo shaqayn jiray waana gudoomiyaha guddiga nabadgelyada arrimaha nabadgelyada sidii isagu arrimaha nabadgelyada waxna la qarin jiray waxna la sheegi jiray ayuu idinku sheegay annaga shiciba si rasmi ah idinku sheegayna waxa jira cadow fara badan oo ku dhiiran inay inaga khalkhaliyaan farxadeenaas iyo damaashaadkeena labadaba qof kasta oo Somaliland ahi maalintaasi isaga ka askariya isaga nabadgelyada ilaalinaya sidii wadaniyadu ahayd ee aanu nabadeena iyo qarannimadeena u ilaashanaynay cadowgaasi kulli waa mid dabadeenna kaga imanaya inta badan wixii ku soo kordha labada bilood ee soo socda gudahood iyo bisha aynu joognaba magaalo kastaaba ha hubiso qofka ku soo kordhay iyo jaarka cidda uu la jaaray iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo hawsha uu hayo si aynu ula soconno qofkii sharwadaana ilaahay ay nala qabto qofkii khayr wadaana dhaqdhaqaaqiisa in la socdo waxba yeeli mayso waxa isaga uu nabadgelyadiisa laga shaqeynayay inay nabadgelyadiisu fiicnaato saxaafadu waxay u qaybsantaa mid duwaliya dawladdu leedahay iyo mid kale oo maxaan raahdaa madaxa banaan sanadkan waynu isku ogeyn waxaynu isku ogeyn inay si isku mid ah uga qayb galaan 18 May 18 Mayna xuquuqda laga helana si isku mid ah bay u qaybsanayaan waajibka la qaatana si isku mid ah bay u qaybsanayaan sidaa ma isku ognahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad maanta halkan waxaanu kaga dhawaaqaynaa waa xuskii 18 May fariinta nabadgelyada oo ay labada wasiirba ka hadli doonaan iyo muxuu ahaa arrimaha muxuu ahaa bilicda waxaan leenahay dhammaan qof walo muwaadina oo aqal leh amba aqal degani aqalkiisa ka kortaaga calanka wajahada aqalkiisana hamar iyo istambar waxa weey waa iidaha islaamka ka duwan ee koobaad ee nagu leenahay labada iidood islaamka marka laga yimaado iida koobaad ee kale leenahay inagu waxa weeyaan waa 18 May kolka qofku inuu wajahadiisa aqalka wajahadiisa magaalo kasta waa ahaade inuu wajahada aqalkiisa istambar mariya xashiishkana ka qaada hortiisana nadiifiya calanna ka dultaaga taasoo keenaysa inay muujinayso muxuu ahaa muwaadinimada qofka iyo inuu u diyaar yahay 18 May qodobka labaad waa nabadgelyada oo ah nabadgelyada waxaanu leenahay dad magaalooyinku way kala duwan yihiin kiisoo kale gaad xaafadaha gala iyo guddi nabadgelyo magaalooyinka kalena waxay leeyihiin guddi nabadgelyo waa in qof waliba lala socdaa aqal walba dhaqdhaqaaqiisa la iskuna wacyi geliyaa lana gudbiyaa sidii ammaanka loo ilaalin lahaa aqal waliba uu u sheegi lahaa cidda ilaalinaysa gaadhka ah aqalka ku xigay cidda soo gashay qof walba qofka ku ag taagan hubso wuxuu yahay laba qof oo kastoo isaag taagan weyn ay hubsadaan qofka kale wuxuu yahay oo muwaadiniintu saa uga warayaan inta ka hadhay intaana oo lala joogta ayaanu dawladaha hoosana ku hayn doonaa nadaafada dadkana waxaan leenahay ka qayb qaataan qof walibana yaanu iloobin inuu aqalkiisa calanku sii kor taago aqalka wajahadiisana istambar mariyo aad baan u mahadsantahay